boqorka wadanka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa ku hanjabay inuu jawaab adag ka bixin doono weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday masjidka uu ku aasan yahay nabigeennii suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay magaalada Madiina. Rag waxyaabaha qarxa soo xidhay ayaa habeen hore isku qarxiyay afaafka hore ee masjidka nebiga. weerarkaasi waxaa ku dhintay 4 ruux oo ka mid ah ilaalada masjidka. Salmaan waxa uu yidhi waxaan jawaab adag ka bixin doonaa kuwii weerarkaasi ka dambeeyay. boqor Salmaan bin Cabdilcasiis oo si gaar ah fariintani ugu diray kooxaha xagjirka ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi, balse waxaa lala xidhiidhinayaa kooxda Daacish oo weeraro caynkani oo kale ah ka fulisay dalal dhowr ah. Sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka xulafada ee ka qayb qaadanaya dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish oo fadhigoodu yahay dalalka Suuriya iyo Ciraaq. kooxda Daacish ayaa waxay hore weerar uga fuliyeen wadamo badan oo caalamka ka mid ah. Khalid Cabdikariin Xaaji, shabakada caalamiga ah Hiral News, Burco.